بسم الله الرحمن الرحيم داوديال ku soo dhawaada barnaamij gaar ah oo inu ku eegi doono tacliinta kala duwan ee ka socota xarun diimeedka Hema Hema waa xarunta tacliinta iyo kobcinta bulshada ee dariiqada Sheekh Maxamed Sheekh Cabdullaahi Sheekh Ibraahim Baardheere taas oo loo binayay tacliinta iyo kobcinta bulshooyinka Soomaaliyeed iyo guud ahaanba muslimiinta waxayna awood ay saartay dariiqada fidinta diinta Islaamka hanuuninta ummadda ka shaqeynta amniga walaalaynta iyo dib u heshiinta dhammaan shacabka Soomaaliyeed mana aha wax bilowday hadda balse waa silsilad ilaa iyo xilligii gumeystaha iyo kadib soo socotay fidinta diinta Islaamka iyo barida ummadda aqoonta suuban kadib markii ay meesha ay ka baxday dawladda dhexe ee Soomaaliya sanadkii 1993 ay bilowdeen dagaaladii sokeeye kuwaasi oo guud ahaanba saameeyay muassasaadkii waxbarashooyinka sababayna in badan oo kamid ah daayirta Soomaaliyeed inay waayaan waxbarashadooda sidoo kalena meesha ka saaray doorkii culimada kana baxeen qaarkood dalka iyagoo magangaliyaha amni u raacsaday dalka dibadiisa kuwana naftooda ay ku waayeen dagaaladii ka dhacay dalka halka qaybo kalena ay aamusnaanta ay door bideen waxay u istaagtay dariiqada Sheekh Maxamed Sheekh Cabdullaahi Sheekh Ibraahim Baardheere badbaadinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee wareeyay dagaaladii ahliga kuwaasi oo saameeyay caafimaad qabka bulshada si loo helo bulsho u diyaarsan soo celinta tacliinta ummadda Soomaaliyeed inkastoo dariiqadu ay xarumo ay ku leedahay dalka gudihiisa iyo dibadiisaba sida Mareykanka qaybo kamid ah Yurub iyo gudaha Afrika haddana sanadkii 1993 waxaa bilowday aasaasidda xarunta tacliinta iyo horumarinta bulshada ee Hema oo kaga beegan 40 kiiloomitir dhanka waqooyi magaalada Gaalkacyo xarunta gobolka Mudug taas oo taariikh dheer ku yeelatay Soomaaliya iyo guud ahaan geeska Afrika oo ku saabsan nooleynta tacliinta waxaana ka socda tacliin kala duwan oo isugu jira diini iyo waliba maadiba sanad kasta waxaa ka soo baxa Hema boqolaal xambaarsan fanuunta kala duwan ee culumta diinta halgankii dheeraa ee loo soo maray xarun diimeedka Hema waa mid laga dhaxlay in daafaha dunida ay kala joogaan dadkii wax ku soo bartay markazyada kala duwan ee dariiqada Sheekh Maxamed Sheekh Cabdullaahi Sheekh Ibraahim gudaha iyo waliba dalka dibadiisa haddaba barnaamijkan daawadayaal waxaan ugu kuurgalaynaa tacliinta ka socota xarunta tacliinta iyo horumarinta bulshada ee Hema waa xilli subaxnimo ah halkan waa xarunta macadka daraasaadka Islaamiga ee Hema waxayna ardaydu isu diyaarinayaan qaadashada duruus maalmoodkooda caadiga ah ardaydu waxay qaadanayaan culumta kala duwan ee shariicada Islaamka sida uu sheegayo Sheekh Maxamuud Xasan macadku waa macad shariici ah maadooyinka shariicada Islaamka oo dhan ayaa lagu diraasayaa fanniga fiqiga ayaa lagu diraasayaa madhabka Shaafiiciga nadmigiisana ayaa la raacaa macallimiintu waxa lagu diraasayaa Qur'aanka Kariimka ah iyo tajwiidkiisa ayaa lagu diraasayaa يعني لا بد عند الشافعية والفقهاء الثلاثة يعني في المذاهب الأربع لا بد أن يكون على نقد من الدراهم والدنانير لا يصح على غير نقد في مذهب الشافعية والحنفية والمالكية والحنابلة dariiqada Sheekh Maxamed Sheekh Cabdullaahi Sheekh Ibraahim Baardheere waxa ay waxbarasho bilaash ay u sameysay kumanaan arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho kadib markii ay meesha ay ka baxday dawladda dhexe ee Soomaaliya taasi oo saameynaya ku yeelatay guud ahaanba ummadda Soomaaliyeed baqdin ilaahay baale ballantaya la baajin intaan banaanka joogno bariya loo shaqeysto dunyada joogno wixina abuuray hadii aynaan ilaalin islaani maadiya way tawaab shambilowno urdadan ka toosno ilaahu toobadkeeno talada aynu saarno يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين هذا الحديث مهم جدا لأهميته العلماء يكثرون ذكره في كل كتاب يؤلفونه حتى لو كان فقها أو عقيدة أو حديثا أو تفسيرا وذلك لأهمية أو يعني لكثرة منافعه لأن النبي صلى الله عليه وسلم يبين فيه مسألة مهمة وهي علامة من أراد الله له الخير deegaanka Hema
tacliinta ka socota ma aho kaliya aha tacliinta diinta sida idin muuqata halkani waa dugsiga hoose dhexe ee Hema. Maamulaha iskoolka Hema Cabdiraxmaan Cali Xirsi waxa uu nooga warbixinayaa marxaladihii uu soo maray iskoolka iyo sida daruusta u socdo. iskoolkan dugsiga hoose dhexe sare ee Hema waxaa aasaasay Maxamed Sheekh Cabdullaahi Sheekh Ibraahim ayaa dhisay waxaana la aasaasay sanadkii 2001 soo maray xaalado kala duwan heerar kala duwan soo maray iskoolka waxaa jirtay waqti uu ahaa uu ka koobnaa keliya 3 qol oo keliya kadibna waa la balaadiyey waa la kordhiyey sheekha ayaa ku soo daray hay'ad kale ilaa haddana waxaa iskoolka dhigata dugsiga hoose dhexe ilaa galaaska 8aad waxaa dhigata ilaa arday 200 oo arday oo isugu jira wiilal iyo gabdho dhigta suuqii waxaa ka iskoolka ka baxay 2 dufcood oo dhameeyey fasalka 8aad dufcadii 3aadna hadda ayay ku jirtaa si wanaag dadaalka sheekha kadib waxaa noo soo gashay in iskoolkii dugsiga hoose dhexe lagu daro dugsigii sare oo fasal ah haddana waxa uu leeyahay galaaskii formanka ah haddii ilaahay yiraahdo iskoolku waa xaaladiisa waxaa kaloo jira arday waxbarashada ka weynaatay oo da'dooda ay weynaatay aanan xilligii burburkana way ahayd oo dee wadankii maamulkiina burburay ilaahay ka raali ahaado sidaasuu Sheekh Maxamedna isagu isaga xilsaaray. Gudoomiyaha guud ee tacliinta Hema Sheekh Axmed Maxamed Cali waxa uu sheegay inay binaynta Hema ay tahay mid ahmiyad weyn ugu fadhida Soomaaliya iyo guud ahaanba dunida Islaamka gaar ahaan ummadda Soomaaliyeed inay Hema ay ka mid noqoto dhulka ay Soomaalidu ay degto. waxaa Ilaahay subxaanahu wa ta'ala aan uga mahadnaqaynaa haykalka wanaagsan ee ay ku asaasan tahay deegaanka Hema magaalooyinka kaleeto systemyada lagu asaaso ima inuu yahay system siyaasi ah oo sida xuduudaha gobolada ama wadamada ay kala sameystaan ima system business ah iyo system qabali ah laakiin deegaankana uu ka duwan yahay. Hema waa deegaan loo sahamiyey in ay noqoto xarun diimeed ee xudun noqoto Soomaaliya oo idil iyo Afrikaba 1974 waxaa safar ku yimid oo in badan ku soo noqnoqonaya sheekhana Sheekh Cabdullaahi Sheekh Ibraahim ilaahay ha u raxmado subxaanahu wa ta'ala safaradaas kala gedisan ujeedkooda waxay ahaayeen in ay meeshaan noqoto xarun diinta islaamka iyo ummadda nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam loo kaalmeeyo. alxamdulillah sheekha iyo dariiqada garba u ahba ilaahay wuxuu ku guuleysiyay in qaybaha bulshada ee waxbarashada Hema in ay maanta ay ka hirgashan yihiin 20 sano ugu dambeysay tacliinta ee dariiqada sheekhu uu wado. alxamdulillah dibad iyo daakhilba way ka hirgashay markii dalka aynu fiirino ama inta hadda Soomaalidu ay degdegto ilaa Wardheer ilaa iyo Garaacad ilaa iyo Bari waxay dariiqadu hirgelisay madaaris qur'aan masaajidadii iskuulo iyo dugsiyaal intaba iskugu jirta. waxaas oo dhanna ujeedka laga leeyahay waxa weeyaan in qofka muslimka ah uu noqdo
qof diintiisa iyo tarbiyadiisa iyo akhlaaqdiisa iyo anshaxiisuba ay ku toosan yihiin tubtii nabiga calayhi salaatu wasalaam. halgankii dheeraa ee loo soo maray xanuundimeedka heema waa mid laga dhaxlay in daafaha dunida ay kala joogaan dadka wax ku soo bartay heema kuwaas oo u taagan faafinta diinta. daawadayaal waxaa xusid mudan in boqolaalkan arday ee heema ku sugan kuna wax baranaya inaysan jirin wax kaalmo ah iyo mid dhaqaalatoona oo kaga baxa iyaga naf ahaantooda ama cid kale oo kaga saacida waxbarashadooda ka sokow isku tashiga diineed ee dariiqada Sheekh Maxamed Sheekh Cabdullaahi Sheekh Ibraahim Baardheere xafidahullah. waxaan ummadda Soomaaliyeed ugu baaqayaa waxaan nina inkiri karinin nina uusan dhaha ka laaban karin baa deegaankan ka jira waana nicmo ilaahay subxaanahu wa tacaala bahweynta Soomaaliyeed gaar ahaan gobolada dhexe oo mudug iyo galgaduud iyo nugaal intaba ah iyo wixii la oran jiray gaar ahaan reer Puntland oo ilaahay uu si gaar ah u weydiin doono subxaanahu wa tacaala. waayo ilaahay wuxuu yidhi thumma la tus'alunna yawma idin cani naciim nicmada la idiin galay waa la idin su'aali doonaa. waxaan ugu baaqayaa qof kasta oo kliibkan uu soo gaaraaye in uu ogaado mas-uuliyadda sheekha iyo dariiqadu ay tunka u riteen oo ah in dadka islaamka jahliga laga badbaadiyo oo shareecada islaamka laga dhisaaye in fariinteeda ay soo gaadheen. marka ilaahay aan ka cabsanno dhammaantiina khayr badan baa idin rajaynahayaa. barnaamijkan iyo barnaamijyada ka dambeeyana allah noo hirgeliyo. aad baa umahadsantiin. wassalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatuh. daawadayaal barnaamijkii aanu ku eegayna tacliinta ka socota xarun diimeedka heema waa naga intaa. barnaamijkan waxaa idinla socodsiinaya anigoo Xuseen Axmed Faarax Xadaari ah waxaana soo diyaariyay guddiga dhalinta dariiqada ee dalada midnimo. tan iyo barnaamijka mid laba intaanu ku kulmayna amaana Allah.